qodobadaan idinkugu heyno haddii abweyne raalli ka noqdana aad kaga bogan doontaan wararkayga dalka Soomaaliya waxaa qayb ka noqon doona oo aanu idinkugu soo gudbin doonaa haddaba macluumaad ku saabsan ra-iisul wasaare xamse la tashiyadii ugu dambeysay ee golaha wasiirada waxaa sidoo kale maqli doontaan haddii abweyne uu inoo saamaxo haddaba sababta loo xidhay xildhibaanad anirahde maxay tahay sababta ay booliisku u xidheen ilhaan cumar oo xarigeeda si aada social mediaha aad markaasi looga dareemayay iyo midowda yurub iyo dalka azerbaijan oo heshiis kala saxiixday qodobada ay qodobo kale ayaanu isla qiimeyn doonaa waa hagaag aynu ku horeyne warbixinta koowaad ee aynu diradda saareyno waxaa qayb ka tahay haddaba guddoomiyayaasha xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa ku dhawaaqay in ay burburiyeen wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda somalilan ee uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ucid iyo wadani shir jaraa'id oo ay si wada jiraan magaalada hargeysa ugu qabteen guddoomiyayaasha xisbiyada mucaaradka ucid iyo wadani ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha somalilan inuu mas-uul ka yahay inay burburaan wadahadalada xukuumadda iyo mucaaradka madaxda mucaaradka waxay sheegeen in wadahadalada labada dhinac oo maalmahan hakad ku jiray ay wax ka weydiiyeen guddoomiyayaasha golaha wakiilada iyo guurtada balse ay u sheegeen in wax natiijo ah aysan kala imaan madaxweynaha islamarkaana uu sheegay in uu markaasi sharci ku taagan yahay sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha somalilan in uusan hayn cid markaasi ka tirsan somalilan oo ku kalsoon yahay balse keliya uu isku haysto in wuxuu sheego ay sharciyan ay yihiin kuwo markaasi habboon ugu dambeyn waxay sheegeen xukuumadda madaxweynahaasi somalilan ee wakhtigeeda uu dhammaaday ay tahay waxa ay wado mid sharci darra islamarkaana ay ku doodayaan waxyaabo aanu suurtagal ahayn dhanka kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ay sida warbaahinada ay ku waramayaan waxa uu ku jiraa la tashiyadii u dambeysay ee golaha wasiirada oo la filayo in toddobaadka soo socda uu ku dhawaaqo sida wararku ay sheegayaan xildhibaano badan oo doonaya in ay kasoo muuqdaan ama ka mid noqdaan golaha wasiirada cusub ayaa ra-iisul wasaaraha toddobaadyadii lasoo dhaafay la kulmay iyagoo ku qancinaya in uu ku daro liiska magacaabista golahiisa wasiirada xubno qaarkood waxaa ku jira dad markaasi beelo kala duwan kasoo jeeda inkastoo ugu dambeyn wax walbo ay kala cadaan doonaan marka lagu dhawaaqo liiska golaha wasiirada intii ugu badneed waxaa la xaliyey caqabadihii ka taagnaa ku dhawaaqista golaha wasiirada iyadoo la filayo in lagu dhawaaqo 20 ilaa 25 bishan sida warbaahintu xukuumadda cusub ayaa lagu dhawaaqaya xilli dalka ay ka jiraan abaaro baahsan iyo amni darro xoog leh oo magaalada muqdisho si aada looga dareemaye haddaba waxaa la leeyahay dowladda jarmalka ayaa dhaqaale xoogan ugu deeqday gaar ahaan 5 milyan oo dollar ugu deeqday soomaaliya dowladda jarmalka ayaa soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa 5 milyan oo dollar si kor loogu qaado awoodda dalka uu leeyahay in markaasi talaal nafa lagu badbaadinayo la gaarsiiyo bulshooyinka fogfog iyo kuwa ay adag tahay in la gaaro lacagtan ayaa qaybka dadaalada ay hay-adda UNICEF ay kula jirto dowladaha caalamka si ay talaalada u gaarsiiyaan meelaha fogfog ee miyiga iyo deegaanada ku xidhan iyo dadka halkaasi ay ku barakaceen abaaraha jarmalku waxa uu arkaa muhiimadda ay leedahay in qof walbo iyo meel kasta la gaaro waxay muujisay intani ay muhiim tahay abaarta haddana jirta ay mar kale caddaynayso buu yidhi mid ka mid a waa madaxa gargaarka bini'aadanimada ee soomaaliya safaaradda jarmalka ee nairobi lacagtan ay bixisay dowladda jarmalka ayaa ka taageeri doonta wasaaradda caafimaadka soomaaliya si ay u ballaariso barnaamijkeeda talaalka covid-19 iyadoo la abuurayo kaabayaal caafimaad si ay u taageeraan barnaamijyada talaalka ee kor loogu qaadayo cudurrada kale sida jadeecada iyo oof wareenka kor u qaadista covid-19 iyadoo oo markaasi beegsan doonta dadka ku nool kaamamka barakacyaasha gudaha xaafadaha magaalada iyo bulshooyinka miyiga qorshaha waxaa ka mid ah in la geeyo talaalo wareeg ah oo si gaar ah u bartilmaameysada dadka reer guuraaga iyo bulshooyinka fogfog tabarucaadda dowladda jarmalka waxay kusoo beegantay xilli 10% ka mid ah dadka ku nool soomaaliya si buuxda looga talaalay covid-19 taasoo aada uga hooseyso bartilmaameedka WHO hay-adda caafimaadka adduunka ee 70% bartamaha sanadkan aada markaasi ugu boorinaysa wadamada in talaalka ay xoojiyaan isla wararka ku saabsan arrimaha dhanka abaaraha soomaaliya haddaba madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa xaruntiisa madaxtooyada ku qaabilay wakiilka hay-adda UNICEF ee soomaaliya iyo wafdi ay hogaaminayso oo booqasho ku yimid jubbaland waxa ay ka wada hadleen sidii xal waara loogu helaa musiibooyinka dabiiciga gurmadka saameynta ka dhalata sida in si wada jir ah la isaga kaashan karo arrimaha dhanka abaaraha iyo dhibaatooyinka ku habsanaya dadka soomaaliyeed waa hagaag bal dhanka kale waxaanu eegaynaa
xariga lagu soo waramayo 17 xildhibaan oo Ilhaan Cumar ay ku jirto oo lagu xiray dalkaasi Mareykanka. ugu yaraan 17 xubnood oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Koongareeska Mareykanka ayaa la xiray xilli ay ka qayb qaadanayeen mudaaharaad ay ku taageerayeen xuquuqda ilmo iska soo saaridda ama ilmo iska soo rididda anirahde kaasoo ka dhacay Washington DC sidoo kale meelo badan oo ka tirsan dalkaasi Mareykanka. Alexandria iyo sidoo kale Rashida Tlaib iyo Ilhaan Cumar ayaa ka mid ahaa dadka lagu xidhay xilli ay dibadbax ka dhigayaan meelo u dhow maxkamadda sare. qoraal ay barteeda Twitterka soo dhigtay ayay Ilhaan xalay fiidkii ku xaqiijisay xarigeeda. waxa ay sheegtay in markaasi la xiray waxay tiri waxa la xiray anigoo ka qayb qaadanaya dibadbax shacab. waxa markaasi la xiray aniga iyo xubnaha kale ee Koongareeska ka tirsan meel ka baxsan maxkamadda sare ayaa nagula xiray bay tiri ay Ilhaan ku tiri qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka kaasi oo uu la socday fiidiyowga iyadoo la xirayo laga dhex arkayay. Ilhaan Cumar oo ka mid ah Koongareeska Mareykanka ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay in ay sii wadi doonto dadaalka ay ugu jirto inay haweenka Mareykanka helaan xaq ay carruurta isaga soo ridi karaan. waxaana sii wadi doonaa bay tiri inaan sameeyo wax kasta oo aan awoodo si aan u kiciyo qayladhaanta ku saabsan weerarka lagu hayo xuquuqdeena dhanka taranka. muuqaal ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa la arkayay Ilhaan Cumar iyo xildhibaano kale oo iska dhigaya sida in garbaduub loo xiray islamarkaana dibadbax ka dhigaya afaafka hore ee maxkamadda sare. xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee sida weyn ugu ololeysa in dumarka xaq loo siiyo inay ilmahaas ka soo saaraan. booliiska Mareykanka ayaa dhankooda xaqiijiyay in ay xidheen 35 qof oo ay ku jiraan 17 xubnood oo ka tirsan aqalka Koongareeska. banaanbaxyaashu waxay bilaabeen in ay xanibaan wadada First Street. waa sharci daro in la xanibo gaadiidka. marka askartu waxay bixiyeen 3 digniinood ka hor inta aysan bilaabin inay xidhaan. waxaa sidaasi kusoo qoray Twitterka booliiska Mareykanka. mudaharaadku waxa uu daba socdaa go'aan ka soo baxay maxkamadda ugu sarreysa ee Mareykanka oo soo afjaray xuquuqda ilmo iska soo rididda ee dalkaasi oo dhan. taageerayaasha u doodaya xuquuqda ilmo iska soo rididda iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa mudaharaad ka dhigaya meelo ku dhow ama u dhow maxkamadda sare tan iyo markii ay maxkamaddu go'aamisay bil ka hor in la joojiyo ilmo iska soo rididda 24 bishii Juun 2022. maxkamadda sare ee Mareykanka waxa ay baabi'isay xuquuqaha ilmo iska soo rididda iyadoo meesha ka saartay xuquuqda dastuuriga ahayd ee la siiyey haweenka sanadii 1973 taasoo loo yaqaano Roe vs Wade. maxkamadda ayaa xukumisay inuusan jirin xaq dastuuri ah oo ilmo iska soo tuuridda iyada oo laashay xukunkii ahaa in go'aanka ilmo iska soo rididda uu la yaalo gobolada. malaayiin haween ayaana haatan la filayaa inaan loo ogolaan inay ilmaha iska soo ridaan. go'aankii ay bishii hore gaadhay maxkamadda ugu sarreysa ee Mareykanka ayaa sii kordhisay dooda kala qaybsanaanta dhaqanka ee ka jirta Mareykanka iyada oo dood horleh ay ka abuurtay arrinta ilmo iska soo rididda ee 10 sano dagaal lagula jiray. haddaba dadka ka soo horjeeda ilmo in layska soo xaaqo ayaa haatan ku guulaystay waxaa sanadihii hore aan suurtagal ahaan jirin. waxay rumaysan yihiin nolosha kumanaan carruura ay badbaadi doonto halka dadka taageersanaa ay aaminsan yihiin in xuquuqda haweenka dib loo riday 50 sannadood. xilli haweenku ay u dhiman jireen sabab la xiriiro ilmo iska soo rididda oo si qarsoodi ah loo sameeyay ray aruurin dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in ilaa 3 meelood meel dadka Mareykanka arrintaasi ay weli ku badan tahay. waxaan kusoo gabagabayn doonaa mid laba wararkii ugu dambeeyay caalamka. midowga Yurub ayaa dalka Azerbaijan la saxiixday heshiis isfahan hordhac oo lagu jibaarayo gaaska dabiiciga oo ay markaasi kala soo degaan waddankaasi. heshiiskan ayaa u ogolaan doonaa in midowga Yurub uu Azerbaijan gaaska ka soo iibsado ilaa sanadda 2027 iyada oo qarashka ku kacayo uu gaari doono balaayiin dollar. midowga Yurub ayaa bilihii dhawaa isku dayay in uu yareeyo ku tiirsanaanta gaaska Ruushka si dhaqaalaha looga yareeyo Moscow sabab la xiriiro duulaanka ay ku qaaday dalkaasi Ukraine. waayahay intaa ayaanu kaga gudbi doonaa macluumaadkaasi Soomaaliya iyo sidoo kale dibadda oo aynu si toosa halkan idinkugu soo gudbinaynay. waan rajaynayaa in aad ka bogateen waad ku mahadsantihiin sida aad noola socoteen saaxiibada aynu jecelnahayo.